duqeymo lagu xasuuqayo kooxda Al-Shabaab oo caawa ka socda gobolka Shabeellada Dhexe iyo faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo duqeymahani ayaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal, laakiin intaan u guda gelin muuqaalka like saara, sii share garay oo la wadaag saaxiibada, boggaana follow soo dheh, mahadsanida. aynu ku bilownay deegaanada Caadle iyo Cali Fooldheere ee gobolka Shabeellada Dhexe. caawa waxaa ka soconaya duqeymo aan kala joogsi lahayn oo cir iyo dhul ah, kuwaas oo ay fulinayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah ee ka taageeraya howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. waxa ayna wararku ay sheegayaan in Caadle iyo sidoo kale Cali Fooldheere caawa aanan fooda la gelin karin oo duqeymo cir iyo dhul ah ay halkaasi ka socdaan, isla markaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo la gaarsiiyey kooxda Al-Shabaab oo isugu tagtay deegaanadaasi aan idiin sheegnay ee Caadle iyo sidoo kale Cali Fooldheere oo ay ku sugan yihiin kooxda kadib markii laga saaray Ceel Baraf iyo sidoo kaleeto Mirtaqwo oo kooxda Al-Shabaab ay haysteen tan iyo shalay gelinkii dambe. sidoo kale deegaano kaleeto oo dhowr ah ayaa kooxda laga saaray oo shalay ay kula wareegeen dagaal dhowr jiha oo ay ku soo qaadeen gobolka Shabeellada Dhexe. laakiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay dib ula wareegaan deegaanadii iyo degmooyinkii ay gacanta ku dhigeen kooxda Al-Shabaab. haatanna waxa ay sheekada u diiga rogatay dhanka iyo sidoo kale Cali Fooldheere iyo Caadle oo kooxda caawa lagu duqeynayo, isla markaana cir iyo dhulba ay isqabsadeen duqeymaha iyo dagaalka tooska ah ee ay fulinayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo hubka culus ku garaacaya Cali Fooldheere iyo sidoo kale Caadle oo kooxdu ay ku sugan tahay. waxaana jiro khasaaro ay saraakiishayna la wadaageen, kuwaasi oo kor u dhaafaya ilaa iyo 10 qof oo meedadkooda ay dul tageen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka. xiriiro kala duwan oo aynu la sameynay ayayna waxa ay inoo xaqiijiyeen in xaaladda Cali Fooldheere iyo sidoo kale Caadle ay tahay mid adag, isla markaana duqeymo kala duwan oo ay iska kaashanayaan saaxiibada caalamiga ah iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaasi ay ka socoto, isla markaana jab aad u xoogan lagu gaarsiiyey kooxda duulaanka soo qaaday ee Al-Shabaab ayay yiraahdeen qaar ka mid ah saraakiisha oo aanu xiriir la sameynay. waxaa kaleeto oo ay tilmaameen in caawa ay gacanta ku dhigayaan Cali Fooldheere iyo sidoo kale Caadle oo kooxda Al-Shabaab halkaasi caawa ay kala kulmayaan duqeyn culus oo iyagu ka dhan ah oo ka imaaneysa dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana daawadayaal halkan idinkula wadaagi doonaa wixii ka soo kordho xaaladani ka taagan Caadle iyo sidoo kale Cali Fooldheere ee lagu xasuuqayo kooxda Al-Shabaab.